muslimiinta waxay door mugle ku leeyihiin horumarinta bulshada ay ku dhex nool yihiin ee New Zealand iyaga oo ka mid ah adeegayaasha shacabka. Ibrahim Cumar oo u dhashay Eritrea ayaa markan ku biiray golaha baarlamaanka dalkaasi isaga oo noqonaya Afrikaankii ugu horeeyay ee muslim ah ee gala aqalka sharci dejinta New Zealand sida ay daabacday Briefly. waxa uu gaaray riyo uu muddo ku taameeyay kadib markii uu xisbiga shaqalaha uu ku guuleystay doorasho dhacday bishan. 42 jirkan qaramada midoobay ayaa sanadkii 2008 dib u dejin ugu sameysay wadanka New Zealand halkaas oo uu ka bilaabay shaqada nadiifyaha. sanadkii 2014 waxa uu ku biiray jaamacadii uu nadiifyaha ka ahaa ee Victoria oo uu ka bartay culumta siyaasadda isaga oo wali aanan ka tanaasulin shaqadiisa nadiifyanimo. goor dambe ayuu ka mid noqday golaha sare ee madasha Change Makers Resettlement Forum. Cumar waxa uu ugu dambeyntii ka qayb noqday koox 40 xildhibaan oo waji cusub ah oo baarlamaanka ku matalaya xisbiga haya talada New Zealand ee shaqalaha.